dal kasta oo dunida ku yaala waxa uu leeyahay caasimaduna waa muraayada la iska dhex arkay oo dal u yeesho. dal kasta waxa uu ku dadaalaa sidii uu sii xoojin lahaa bilicda iyo ka shaqaynta horumarka caasimadiisa. markaas aan soo laabana dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo wadankeena hooyo, maxaa u diiday dadka inay ka shaqeeyaan horumarka iyo sidii ay bilicda caasimadeena kor ugu qaadi lahaayeen. waxaan booqanay liiseega Djibouti waxaana aan halkaas kula kulanay qaar ka mid ah dhalinyarada ka barta iskuulka liiseega waxayna nooga warameen daroonkooda ku aadan dadkan ku qoraya darbiyada. ciyaalkeena ku qoraya gidaarada magacada badii trikomsa waa shay weyn aad iyo aad uga xun oo aad iyo aad uga xubaanay. marka waxaan ardayda aan u sheegi lahaanba jeenka maanta waxa ku horan lahaa walaalayaal ka daaya gidaaradan amba kalaasadan aad ku qorqoraysid waxaan dhici karin ay umadu ay supportay karin waayo waxay kaga dhacaysaa imaaniteegeena kaga dhacaysaa doc waxaan oranayaa marka ma fiicno inaan lagu qoro gidaarada amba lagu qoro mirarka naabaqtu waa noqoto amba kalaas ha noqoto amba dibadda kalaas ka noqoto amba gidaar kasta ha noqoto arday baa jirta ka dambayso oo meesha dhiganaysa arday baa jirta ka dambaysa oo wax doonaysa inay ku barato marka hadda wax xun aan ka aragna meeshii wadaan ardiga uu sameeyo baan anaguna bir sameeynaa marka waxaan oranaynaa sheega ma jiro ee walaalahayow han dhowrano iskooladu waa iskooladeeni idaaradno gidaaradeeni. dadku iskuma jiraan dadka qaar ayaa darbiyada amba miirasha waxay ku qoraan magac aan la fahmaynin waxayna u badan yihiin iskuulada dugsiyada sare iyo iskoolka jaamacadda. waxa aan ogsoonahay in darbiyada amba miirashaasi lagu qoray magacdaasi ay dawladda kharash uga bixaan isla markaana sanad kasta la dayactiro oo lagu soo celiyo bilicdii uu miirkaasi lahaa. anu waxaan oran lahaa dhalinyarta laga waaniyo ama laga dhiirigeliyo si ayna waxyaalo gidaarada ugu qorin ay ka taxadir looga sameeyo. waa xunta horta bulshadana waa xuntahay isha bilaadanka dariiqa marayna waa xuntahay ciyaalkana waa xunto tarbiyad xumo ay baranayaan iyo dhaqan aan garanayn bay baranayaan oo Yurubta kala yimaadeen. dhibaato xoogan ayaa kulli ka dhex jirta ninkii hantilaha ee guriga lahaa iyo iyaga Soomaa ayaa ka jirta dhibaato xooga ka jirto ma fiicnana inay lagu qoro gidaarada sida inkastoo iyagana kharash ninkiina kaga baxay hantilii lacag kaga baxday inuu inta uu kharash geliyo ranji mariyo dhibaatada caynka uu sameeyay ciyaalkana waa ka waaninay inay ka daayaan. balse dadkeena qaar ayaa sidii aan waxba iska bedelin oo dalkan aanu tureynin waxayna markasta ku qoraan casharo aanan fahmaynin.